kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale mid ka mid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. maanta waa axad taariikhdana waa 11 bisha December sanadka 2022. barnaamijkan waa mid ka mid ah barnaamijyada aynu maanta idinkugu talagalnay waa qaybtii ugu horeysay. waxaynu kaga hadlaynaa warbixino murugo leh oo laga soo sheegayo wadankaasi Ukraine, iyadoo qabow daran la sheegayo in laga yaabo dad aad u fara badan oo reer Ukraine inay u dhintaan qabowgaas kadib markii Ruushka uu baabi'iyay dhammaan goobihii korontada in badan oo ka mid ah dhulka wadankaasi Ukraine, iyadoo dadku aanay haysanin waxyaabo ay markaasi isku kululeeyaan iyo biyo nadiif ah oo ay cabaan labadaba, maadaama diyaaradaha droonka iyo madaafiicda Ruushku laga soo bilaabo bishii October ilaa hadda ay duqeynayeen halbowlayaasha goobaha istiraatiijiga ee laga dhaliyo korontada iyo biyaha. madaxweynaha Ukraine oo hadal jeediyay telefishinka ay Yurub leedahay ee liiraado Euronews oo soo bandhigay sawirro aad u naxdin badan oo muujinaya dad reer Ukraine oo qarka u saaran qabow iyo baraf dartiis inay u dhintaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladaas ayaan barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. barnaamijyadeena soo gudbintooda waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee liiraado Safari Remit, xarunteedu waa UK, adeegeeduna waa online. haddii aad doonaysid macluumaad dheeraad ah fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay daawadayaal, waxaynu guda galaynaa barnaamijkeena Nadaara Show. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalka ka socda Ukraine ayaa iminka waxaa laga soo sheegayaa xaalad bini'aadanimo oo aan aad u wanaagsanayn, taasoo ay sababtay duqeymaha ay Ruushka duqeeyeen goobihii korontada laga dhalinayay iyo goobihii biyaha ay dadka ka heli jireen, taasoo keentay dadku inay qarka u fuulaan qabow dartii inay u dhintaan iyo biyo la'aan. xilli baraf badan uu ku da'ay wadankaasi Ukraine, qabowgana uu aad u sii kordhayo. madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky ayaa sheegay in dad ku dhow 2 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin qabow dartii inay u dhibaatoobaan wadankaas, wuxuuna eedayn u jeediyay dowladda Ruushka isagoo sheegay inay beegsanayso goobaha halbowlayaasha ee laga dhaliyo korontada iyo biyaha si ay markaa u baabi'iso dadka wadankaasi Ukraine. Zelensky waxa uu tilmaamay magaalooyinka Kharkiv, Odessa iyo Mykolaiv inay yihiin goobaha ugu halista badan wadankiisa, dad aad u fara badanna ay qarka u saaran yihiin in markaa dhibaatadaasi ay wax ku noqdaan. haddaba aan idin tuso qariidad laga sameeyay sida ay wax uga socdaan oo uu diyaariyay telefishinka Al Jazeera. qariidadan waxay muujinaysaa sida aad arkaysaan in markaasi diyaaradaha droonka ee duuliyo la'aanta ah iyo madaafiicdu ay ku dhacayaan goobaha muhiimka ah ee korontada laga dhaliyo ee wadankaas. laga soo bilaabo bishii October ilaa hadda Ruushku waxa ay beegsanayaan goobahaas. malaayiin dadka wadanka Ukraine ah oo iyagu is adkeeyay oo ku haray guryahooda dagaalada culus oo socda darteed ayaa hadda qarka u saaran inay arintaa u geeriyoodaan. waxaa sidoo kale Ruushku ay sheegeen in la beegsado goobaha muhiimka ah ee halbowlayaasha dadweynuhu isticmaalaan ay bilaabeen sida ay sheegeen Ukrainiyiinta kadib markii ay weerareen jasiiradda Crimea ama jasiiradda buundada weyn ee la yiraahdo Crimea iyo ama Qram, labada midkood ayaa waxay yiraahdeen inay markaa bilaabeen iyagu inay buundadaas halbowlaha u ah isu socodka dadka Ruushka ay duqeeyeen, sidaa daraadeedna Ruushka uu ku ciqaabayo Ukraine falkii ay geysatay. haddaba arintan ayaa waxaa ka hadlay la taliyaha ammaanka qaranka ee wadankaasi Mareykanka, ninka lagu magacaabo
Jack Sullivan waxa uu sheegay in ay haystaan Iran. waxa uu sheegay Iran inay tahay midda burburisay halbowlayaasha kaabayaasha korontada iyo biyaha waddanka Ukraine. sababtana waxa uu sheegay inay boqolaal diyaaradood oo kuwa droonka ah ee isqarxiya iyo kuwa kaleba ay kasoo iibisay waddanka ruushkuna uu iminka u isticmaalayo dagaalka uu ku hayo Ukraine diyaaradahaas uu ka keensaday waddanka Iran. haddaba si kasta oo ay arrintu tahay waxaa la leeyahay Iiraaniyiintu way beeninayaan, waxay sheegayaan in hadalkaasi aanu waxba ka jirin. dhinaca kale ruushku waxay sheegeen in Ukraine ciidamadooda laftirkoodu ay bilaabeen inay duqeeyaan goobaha korontada laga dhaliyo dhulka ruushka uu xoogga uga qabsaday Ukraine sida Luhansk iyo Donetsk. waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay keenayso in ruushka uu sii wado beegsiga meel walba oo koronto laga dhaliyo oo ku taala waddanka Ukraine. haddaba warbaahinta wadamada reer galbeedka gaar ahaan telefishinka weyn ee Yurub laga leeyahay ee la yiraahdo Euronews ayaa wuxuu soo saaray sawirro aad u argagax geliyay dadyowga caalamka ku nool. waxa ay sheegeen in hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay ka digayso dad fara badan inay u dhiman doonaan qabow dartii waddanka Ukraine. dadkaas oo badankood ah dad waayeelo ah oo ku haray guryihii kadib markii dadkii dhalinyaradii iyo dadkii kale ay guryihii ka qaxeen oo dagaalada dhacaya aawadeed ay isaga carareen. haddaba aan idin tuso qaar ka mid ah sawiradaas oo runtii aad u argagax badan oo muujinaya qabowga iyo barafka iyo dhibaatada haysata dadka Ukraine iyo awood la-aanta ciidamada Ukraine in ay iska celiyaan ruushka diyaaradahan droonka uu wato iyo madaafiicdan mar walba duqeynaysa goobahooda. waxay sidoo kale Ukrainiyiintu sheegeen in hubka ay u keeneen reer galbeedka dhibaatada haysata iyo duqeymaha ku socda 30% in aysan wax ka qaban karin wax ka badan oo 70% ruushka meelihii uu doonayay dhammaantood uu burburiyay. gantaalihii loo keenay iyo madaafiicdii isaga celiya la yiri ilaa hadda wax badan oo ay noo qabteen male ay taagan yihiin. haddaba aan aragno sawirada Euronews uu soo bandhigay. marka ugu horeysa waxaan idin tusayaa sawirkan hooyo da ah oo waayeel ah oo reer Ukraine ah oo inan ay dhashay la sheegay in uu ku wado gaari iyadoo barafkana dhinacyada uu ka dhooban yahay oo barafku uu si weyn ugu da'ayo halkaas. waa tahay waxaa sidoo kale sawirada ka mid ah oo la soo saaray dadku ay aad ula yaaban yihiin dhibaatada haysata dadka Ukraine. dad guryahoodii madaafiic ku dhacday oo raba inay soo qaxaan oo magaalooyin kale aadaan. waa dadkii tirada yaraa ee ku haray magaalooyinka qaar ayaa wadadii waxaa ku helay baraf. ay tuso dadkii oo lugayn la oo socon la baraf iyo qabow iyo dhibaato. ma jirto awood ay dowladda Ukraine wax ugu qaban karto dadkaas oo in badan ka mid ah ay dhibaataysan yihiin. haddaba aan aragno dadkan barafka ku dhex lugaynaya ee shacabka ah. waa tahay sawir kale oo warbaahintu ay soo qaadatay ayaa isna aad u gelgelay dunida kaasoo muujinaya qof waayeel ah oo gurigiisa iridkiisii fadhiya. gurigii baraf ayaa dhinac walba ka degay. waxa uu isku kululeeya ma haysto. dowladda Ukraine waxay tiraahdaa qoryaha soo qaata kaymaha taga qoryaha shita. laakiin qof waayeel ah oo gurigiisii jooga oo dadkii ka kala qaxeen oo keligiis guriga ku haray awoodda uu u leeyahay inuu kayn tago oo uu qoryo soo gurto oo kayntu baraf buuxo oo guriga kusoo laabto uu shito way adag tahay alle. marka aan aragno sawirkan isagana
qofkii oo isdhiibay inuu dhinto u diyaar garoobay oo guriga iridkiisii fadhiya oo qabowga dartiis dhibaatadaas ay ugu dhacayso. waa tahay waxaan idin tusinayaa qof waayeel ah oo dumar ah oo aragtay qabowga, dad badan inay ku dhinteen, dad badanna ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan, oo dariiqa ku lugeynaysa oo iska ooyeysa ayay haddana sawiro ka soo qaadeen warbaahinta. waxay muujinaysaa dareenka naxdinta leh ee ka imanaya gudaha waddanka Ukraine iyo dhibaatada haysata shacabka Ukraine. inkastoo dowladoodu ay ku adkaysanayso inay isdifaacayso, haddana ruushku waxa uu ku wadaa dhibaato xoog leh dadkaas. waa tahay sawirka kale ee soo jiitay dunida wuxuu ahaa dad la sheegay inay u dhinteen qabowga, oo dhibaato badan oo qabow ah ay la kulmeen darteed u dhintay, oo barafkan da-aya iyo qabowgiyo sii tiro badan iyo koronto la-aantan u dhintay, oo dad waayeela u badan ayaa meydadkooda dushooda waxaa la leeyahay waxaa la saaray sawirka Putin inuu isagu yahay midka dadkaa laayay. marka dadkii tabar kale ma hayaan, wax kale ma hayaan, inay marka dareenkooda ku muujiyaan war ninkan wuuna laayay, dadkan isagaa laayay, isagaa korontadii ay haysteen ka burburiyey, isagaa guryahoodii duqeeyey, marka ninkan waa ninkana laayay. waa tahay marka si kastoo ay arrintu tahay, xaaladdu marka halkaasay maraysaa. hadda marka reer galbeedkii taageerada siinayay Ukraine waxa ay ku soo urureen Iiraan ayaa diyaarada siinaysa. Iiraan waa inay joojisaa diyaaradaha ay siinayso, diyaaradaha gantaalo blastiga kasoo qaatay ruushka. Iiraan Ukraine waxay taagan tahay de Iiraan ma ahane waxa kan waxaan isaga dhicino oo saxana sii. marka waxay u muuqataa waddanka Ukraine xaaladiisii inuu faraha kasii baxaya, maalin walba maalinta ka dambeysana korontadu ay sii dhammaanayso oo meelihii korontada ay ku harsanaayeen uu ruushka duqaymo ku wado. marka xaalku halkaasuu marayaa. wararkii ugu dambeeyay waddanka Ukraine aan idiin soo arooriyey, dadka reer Ukraine aad bay ugu xun tahay. dowladooduna ilaa hadda ma ogola wadahadal rasmiya inay la gaso ruushka, waayo waxaa dhinacyada ka jooga reer galbeedka oo iyagu aan ogolayn in wadahadal ay la gasho ruushka, laakiin dadkeedu dhibaatada ayay ku jiraan. ruushkuna way ka go-an tahay inuu gobolladii uu qabsaday uu difaacdo, uu haysto, dagaal dambena uusan soo qaadin, duqaymahaas uu ku hayo goobaha korontada laga dhaliyo, si dadka iyo shacabka iyo dowladdu ay isaga hor yimaadaan, dadkuna ay qabow u leedaan. haddaba daawadayaal, qaybtan barnaamijka aynu kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka socda Ukraine intaa ayaan kusoo koobayaa. waa laga yaabaa inta aan ku jirno maantay barnaamijyadeena diyaarintooda inaan barnaamijyo kale soo gudbin doono haddii Allah awoodili ka raali noqdo. anigoo nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. inta aan mar kale barnaamijka lamid ah ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.